waxaa magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika ka qabsoomay kulan ay isku xog wareysanayeen safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ku matala dalka Koonfur Afrika iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed. Xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika, Ambassador Maxamed Sheekh Isaaq, waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, culumaawdiin, dhalinyaro iyo waliba mas'uuliyiinta jaaliyadaha. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa ugu baaqay safiirka inuu si hoose oo la shaqeeyaan madaxda jaaliyadda. safaaradda eedaha loo hayo waxa kamid ah safaaraddu waxay matalaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ma matalayso xafiiska ay fadhiso. xafiiskaas waa u shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika. safaaradda waxa eedaha laga tabanay waxa kamid ah koow dhaqankii ahaa inay xasuusiso dadka Soomaalinimada. waxaa ku muuqata calan baa hadda garabka ka suran, calankii in la iloobay oo matalaadiisi la iloobay. waxaan u maleynayaa South Africa ee lagu sameeyay kowda Luuliya waxa u dambeeyay waqti hore waagu safiirka Shariif joogay. aan u maleynayaa wixii ka dambeeyana wiilal safiirkii aan ka horeeyay safaaraddu safiir badan hana maray ka jaalid ahaan North ahaan kulay anta badan safiirada ninka oo jiray waan hadhawaayani waan safiir ahaan ma leeyahay isla la shaqeeyani laakiin hal cilad leenahay ma leeyahay wali xafiis safaaradda qaabilsan wali macnaa noqdo sameeyka furna marka ma ku cusaan oo macnaha adii iyo howlwareedinada anti safiir macnaha qof hanin wakiilatan ama aan yaraan ma leeyahay xafiis safaaradda macnaha wakiilku opening hala qortaan dirtaan Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in safiirka loola shaqeeyo nin Soomaali oo dhan mathalay inuu yahay qoladiisa iyo qabiilkiisa iyo meesha oo soo ka soo jeeda iyadoo la fiirinaynin Soomaali oo masalaya Soomaalnimo loola shaqeeyo inta shacabka leeyahay wixii culays ceeb oo soo baxana waa loo wada joogaa insha Allah taala. wuxuu yahay mudan safiir Koonfur Afrika dadka joogay waxay u baahan yihiin hoggaan midaysan, aqli midaysan, cudud midaysan. waxaan ka rajaynaynaa shaqo aysan qaban safiirada ka horeeyay intii ay qabteen waa qabteen inta dhiman insha Allah taala inaad si hufan oo qurux badan aad u qaban doonto. dawladda ma mucaaradsan waa jecel yihiin mana xal la'a oo safiirkii yimaadaba dhagaxya laga daba tuura. marka waxaan rajaynaynaa inaan dhagaxya laga daba tuuri doonin. haddaad aragto mararka qaarkood xoogaa sida aad u maleynaysay si ka hooseyday inay xoogaa la shaqayntu tahay waa dabciya adiga lagugu daraamaayo saa ogow. hadda safiira ka horeeyay maxaa cali mire ina aad u qaybo badan ahay sidaas oo kale waxay dhahaan raggii la shaqaynayay qaar aan ka warsaday nin aad u fiican oo ahaa laakiin waa shaki badnaa. dadkan waa iska ilaali jiray waana u shaqay jiray waana la shaqay jiray. marka qaybtii shakigana iska daa qaybtii kale wanaagana uga dayo. sidoo kale waxaa madaasha ka hadlay qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha jaaliyadaha ee ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika. dawladdeena ama Canada joog ama America joog ama South Africa ku dhalo ama citizen haw lama horaa waa caws jiilaal gurigeennii baan ku noqonaynaa. ragaan 30 sano arag waddankiisa cad safiir ayaa jooga halkan oo u baahan waddankoodii inay dhistaan guryahoodii dib u xaadhaan dib u degaan. safiir soo dhawow dad wanaagsan baa jooga dalka. waxaan rajaynaynaa haddii safaarada Soomaaliya si toos ah isu garab taageen wax badan ay qaban doonto insha Allah safaaraddu iska garab taagto. sidoo kale guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala Koonfur Afrika ayaa dhankiisa hadal kooban ka jeediyay xaflad. kulley walakiinka muhiimsan qoray soo hodheeyay adan ku jawaabta dawlad badan jiraan dadkan waliba waa sida walaalkay Muxdiin Nuurjal ay sheegay intii irmaaniin yaa howlal la qabada may baa maray dadka dhan boqolkiiba 99 intii hadii ay raacsanyiin. dhanka kale guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Cumar Warsame Talyaani ayaa goobta ka hadlay. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad saacad safiir ku soo dhawow dalkaagii labaad bulshada ugu soo idmaday. waxaan ku leenahay gacmo furan qalbi furan ay jaaliyadda kugu soo dhaweysay maanta. waxaan rajaynayaa inay kugu soo wadin doonto qalbi wanaagsan
baahiyaha iyo bukaanka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ka butani adiga ayaa laga rabaa inaad ka daweyso una soo baxdo una khidmayso inaad noqonin nin ku dhex jooga bulshada inuu teetarkiisa ku ilaaliyo muddadiisa ku dhamayso inaad noqon ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hoosha oo loo soo idmadana u fududeeyo asaga oo soo noqonin bulshada talyaani waxa ugu horeeya aan hinjaabka ayuu ugu jiraa guriga laga waco iyo bulshada uu cadana si siman oo Soomaalinimo ah oo cadaalad ah inuu ugu adeego ugu dambayna ambassador Maxamed Sheekh Isaaq ayaa kulanka soo xiray waxa masalaysa Soomaali calankaas masalaysa buluuga marka habdhaqankeena dadka inta jooga iyo kuwa maqanba ha yeesho Soomaalinimo dhaqankii lagu yaqiinay ee ahaa inay dadna soo dhaweeyaan nabadgelyo dadka ay kula noolaadaan ee maxay ahaydona ha u soo laabtaan sharciyada ha noqoto caqabada dilalka iyo xaaladaha ammaanka waa caqabad weyn laakiin arimahaasi culeys weyn iyo waxay nagu haayaan dib waxyaabaha oo ugu horeeyo aan sameyn doono ayay noqonaysaa gurigaasi waan dhisaynaa waan gadanaynaa guri annaga aan leenahay oo calankeena Soomaaliya nooga taagay aan sameysanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ku diyaar u saarana biidnillah al-kariim Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle